marka doctorka waxaan leeyahay marka leeyahay tartan baan galaya campaign baan galaya iyo marka aad leedahay message baan soo diraya dhakhtarkii baan ka shaqeynaya keeba taxanta balabadaan oo kala sheeg shacabka meena dawo qaldan qortaa doonaysa nin campaign siyaasadeed ku jira sidoo dad neerfaha ka buka u dabiibi kara leeyahay xusbiyada liisankooda wuxuu dhacay 26 December waa been وعلاني وحي أود قرن كان لها وحل دوني نيك كلية ما أنت أول لي مش تسوي تاجني وودني جنب اللي هلو أديكسو والله وحن خد عرني أتمنى كورر صباحي إن أنا شو تمنى كنا نعمل مش كنا نعسوه الكريه وأيضا أنا بكل قفهان وردنا هم واسكام صنايع وحن لها مرة ديم إن بدل لحلي وهذا الكحبة يكسون قوائين ملها وحلقاتي أمس كحلقاتي سوي كفر سوي ذا يوم مربى وحيس هم مغلق الله قلبه شرع الدراء شرتها إن وحلقي هذا والله جه الله وأرهن آدي مهمة جدًا ورهد وانجلينها يا سحنت أصحاب تقرن وجود الإساس ترى خرنا ونشجوا كدعوني وحوضا إن الشرع درات هينا ونجي محكمة تقني لكن الدرات وحي هاي شرع درات اللي فتهدي أي محكمة دي أتشديس تبي تمركتها سد عضي وإن يسي الله عليه سيدي أيضونان شرعية دي ذلك وبتقري فلان وحارد مودا ما أنت إن institutions كي قرنك لو أديك سنة أيو burburintii iyo awoodii ku taariifalka qaranka oo dhanba hay'adii xishoon lahayd sharciga ilaalin lahayd wixii xeerarka dalku u jideeyay qaban lahayd wixii wax ka duwan haday qabato waxaan u maleynayaa meesha wax allaaliyo wax soo haray inaanay jirin markaynu eegno systemka dawladnimada Soomaaliland waxa dhisay Allah ha u naxariistay maxamed xaaji ibraahim cigaal marka anu waxaan la yaabanahay systemkan فول أديجيسا سدوس كذا حكينيو وحنا أوها قردامة أنتي إلهي مسؤولية دوغا دغاي سيدوران uga yeelayaan shalay waxaynu arkaynay in gudidii ururintayaan inta gacanta qaranku ay shahaado siiyeen 10kii urur ay sheegeen inay soo gudbeen ilaa marka horeba iyaga sheegay waay sida markay tahay hadaba isweydiintu waxay tahay xeerku mi hal shahaado sheegay oo uu hada u jideeyay misal laba qof kasta sharci yaqaan qof kasta af Soomaaliga yaqaan akhrin karaya xeerka siyaasadda Soomaaliland waa xeer number 14 uu akhrin karaa uu garan karaa waxaanu sheegaya oo si cad uga hadlaya qodobkiisa shanaad farqadiisa labaad taasi oo leh muddada hawlgalka ururadu waa 6 bilood oo ka bilaabmata maalinta la siiyo gudida ururada diiwaangelintu waxay kala tashanaysaa komishanka doorashooyinka qaranka sidaas oo ay tahay shaqada la qabanaya hawlgalkana way sheegeen waxa la qabanaya shirweynaha madax taabashada iyo campaign-ka iyo furashada xafiisyada gobolada sidaas uu xeerku sheegay cad shahaadada waa la bixiyay waa tanaan hayo wala la siiyay waa la bixiyay waa tan waxa kale la bixiyay waa kan halkan ay ku taala wata saxiixyadu waa shaambadiyo loo saxiixyadu waa kuwan shaambadii waa tan ururada diiwaangelintu loogadii qaranku waa tan dheedkii la bixiyayna waxa weeyaan 18 bishii August halkan ku cad yahay waxaanay ku eeg tahay 18 bishii February bishii February waxa bay naga haray December maanta aynu ku jirno iyo maxay tiro January sidaas lixdoodii bilood ku gabagabay yahay iyadoo xeerkii ururada xeerkii doorasho tooska lagu gal lahaa aan la ansixin kow iyadoo khilaafkii jiray aan laga heshin laba ayaa xusbiyada muddada dhaqaaqa ahay ururnimo sheegan lahaayeenba soo gabagabooday marka wax kale loogama jeeday waa halkii deelay laga lahaa hore u soco gadaal u soco maxaa daa la kororsaday waa 6 bilood baa la doonaya in hore iyo gadaal loo jiido waaba 6 bilood maxay kordhi 6 bilood waxay ku eegayeen 18 bishii February guddidu maanta waxay doonaysay tan ay bixisay waxa ku qornaa iyadana waan soo daabacayo bisha 6 November 6deedii iyadana waxa ku eekaanaysaa waa Mayna waxa la gaari iyadoo diiwaangelin la sameeyay waxa la gaari iyadoo xeerkii la saxeeyo kan golayaashii guurtidii xeerka ay laba bilood fasaxay gashay sidaas oo ay tahay waxa meesha ka socda waxa weeye in la doonayo xaabo iyo dab lagu shido xisbiga mucaaradka ay wadani waxa socdo oo dhan institutionka qaranka haday maxkamadda tahay haday ururada diiwaangelinta tahay haday bileeskii tahay waxalaaliye wixii awood qarankan lahaa waxa la doonayaa ninka kaliya maanta awood la meesha soo taagan waa wadanigan baa leeyahay loo adeegsado wallahi waxaan ku dhaaranayaa 10 urur soo baxay inaanu jirin 10 kuna amal meesha kuna cusub heli karaya way kunka qof bas bi ku sidii kaasa li xisbaad markii la qabanayay shirweynayaashii ururada ilaahay bay ku dhaariyay miirihii baa tiiri miyaad aragteen ururkii shirweynihiisa lagu tartamay oo gudoomiyihii inta lagu tartamay halka lagu kala calaf qaaday ma jirto xeerku taasoo sheegaya sida markay tahay
waxa meesha ka socda waxa weeyaan dee soo sagal madooba marka waxa inoo muuqata inay maanta foolka iyo foosha taala ay tahay mid la doonayo awoodii qaranka in cid gaar ah lagu muqooniyo gudidii ururada diiwaangelinta taasoo bay ka shaqeysay tan saaka halkan soo fadhiisan ka hadlayna waa intaasi xaqiiqda hadaynu soo noqonana waxa loo iman doonaa oo la isla gaari doonaa iyagoo hadana 60 bilood dhacay iyadoo la sameeyay diiwaangelintii kow iyadoo wixii khilaafkii muranadii jireen aan laga heshin laba iyadoo aan xeerkii kartoonka lagu riday ee qoyeyna guurtu laba bilood fasaxa kula maqayeen waayo 6 bilood hadad hore iyo gadaal u jiido waa 6 bilood ma sanad bay ku noqon mana jirto sabab ay markaa u noqdaan haday muddada 6 bilood dhamaadaan ururo jira oo doorasho la kala xisbiyada maanta jira waayo sharciyad ma haystaan qodobkana doonayna bayaamiyo waxa la yiri xisbiyada liisankooda wuxuu dhacay 26 December waa been ninka maanta taa sheegayna suu doona dalka ha maamulo waan sababeynaya xisbiyadu waa dastuuri waxaana dastuuri noqdeen 2012 maalintii shacabka reer Soomaaliya intii kulmiyada tageen sanaaduuqda dul fadhiisteen ay u codeeyeen ayaa kulmiye dastuuri noqday oo cid dastuuri noqday wadanina noqday xisbi dastuuriya ilaa la helo xisbiya la soo doortay oo dastuuriya oo sanduuqa loo tagay oo codkooda loo dareeray oo shacabku soo doorteen meesha ka bixi maay jiritaankooda waa qaanuun shakhsiya waana jiri doonaan waana jiraya ninka laakiin maanta maxay tolay isku mid baanay waxaan arkay Dr. Gaboso oo leh isku mid baanay marka doctorka waxaan leeyahay marka la tartan baan galaya campaign baan galaya iyo marka aad leedahay message baan soo diraya dhakhtarkii baan ka shaqeynaya keeba taxantii labadan oo kala sheeg shacabka meena dawo qaldan qortaa doonaysa ninkan campaign siyaasadeed ku jira sidoo dad neerfaha ka buka u dabiibi kara waa su'aal meesha taale